Waxaan oo wanaagsan daawadayaal maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay inankii wejiga kaamirada lahaa daawo oo iska taxadar. Muuqaalka ugu horeeya waxaynu arkaynaa telefishin halaysan kaasi oo zoom gareynayo maalinta dhalashada ee jiraaga filinkan. Waxaynu arkaynaa hooyadiis oo foolanayso halka aabbaha uu doonayo in uu sawir ka qaado marxaladda uu cunuga dhashanayo, laakiin wuxuu arkay arrin cajiib ah. Sidoo kale kalkaaliyayaasha ee dhakhaatiirta way ka yaabisay dhacdadaasi, sababtuna waxay tahay in inanka uu leeyahay weji kaamirad ah, taasi oo dhakhaatiirta wareerisay. Dhakhaatiirta waxay ogaadeen in canjalad loo baahan yahay in kaamirad la geliyo si uu cunuga u noolaado, halkaas oo habeen walbaba laga bedelayo canjaladda. Aabbihii iyo hooyadii cunugooda guriga ayay u qaateen. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa dhacday waalidka oo doonaya inay sawir iska qaadaan, kaamiradooda ayaa u shaqey weysay. Taa beddelkeeda waxay isticmaaleen wejiga inankooda. Habeen walba waa ay ka bedeli jireen canjaladda, taasi oo keentay in gurigii oo dhan uu noqdo canjalad buuxdo. Inankii waa uu weynaaday, waxaana la geeyey iskoolka. Qof walbaba oo ardayda ah waa ay soo jiidatay wejigiisa, waxa ayna bilaabeen inay fuudeeyaan, laakiin waxay hilmaameen in kaamiradan ay duubayso dhacdooyinka. Maalintii xigtay maamulaha iskoolka ayaa lagu dacweeyey inamadii foodeynayay. Maalintaas wixii ka dambeeyey waa ay jooyeen inay foodeeyaan, laakiin taa beddelkeeda waxay bilaabeen inay dad kala foodeeyaan. Inankiina wuxuu bilaabay inuu duubo. Maalintii xigtay sidoo kale canjaladii ayuu u geeyey maamulaha iskoolka, taasi oo keentay in la ciqaabo inamadii. Inankii waxa uu isku dayay inuu saaxiibo samaysto, laakiin waa u suurtagal weysay maadaama uu leeyahay weji kaamirad. Sidoo kale waxaa loo diidi jiray inuu galo tiyaatarada maadaama aanan laga ogolaan kaamirado, taasi oo keentay in inankii uu dareemo kalinimo, caafimaadkiisa maskaxeedna uu xumaado. Maalin maalmaha ka mid ah inankii wuxuu arkay dhacdo noloshiisa beddeshay. Waxa uu la kulmay gabar qurux badan, laakiin arrinta cajiibka noqotay ayaa ah inuusan arki karin wejigeeda. Waqti kadibba waa ay saaxiibeen, si ay waqti dheer iskula socdeenba. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa hor yimaaday nin, waxa uuna u sheegay inuu yahay director oo filmaanta jilo, waxa uuna doonayaa in uu show ka sameeyo noloshooda. Waxa uu sidoo kale doonayaa inuu inanka ku wareejiyo canjaladihii u kaydsanaa ee taariikh nololeedkiisa, si uu musalsal dheer ah uu kaga sameeyo taariikhdiisa. Waa uuna ka aqbalay maadaama la siiyey sanduuq ay lacag ka buuxdo. Showgii ayaa hawada galay, taasi oo keentay in daafaha caalamka oo dhan laka daawado. Waxa uuna u soo xareeyey hanti iyo magac. Meel walba ay tagaanna ay kaamiradaha qabanayaan. Lacagta ay ka sameeyeen showga waxay ku gateen guri cusub, halkaas oo ay ku wada noolaayeen. Caanimadiis marka ay ziyaaday inanka, waxa uu bilaabay inuu sameysto kanaal u gaar ah, halkaasi oo dadka lacag ka qaado daawashadiisa. Waxa uuna u soo bandhigay guur saaxiibtiisa, waa ayna ka aqbashay, halkaas oo kaamiradiisa ay duubayso dhacdo walba oo noloshiisa ka mid ah. Laakiin iyaga waxba kama gelin maadaama ay lacag ka sameynayaan. Caanimadiisa oo ziyaaday awgeed dadkii waa ay qabatimeen. Waxa aana dhacday in ay guryaha joogaan 24 saac ayna daawadaan dhacdada inankan. Muuqaalkana meeshaas ayuu ku egyahay daawade.